السلام عليكم كسو دوادا كانالك عبدالعزيز بورلي قصة مروغالي نين ديل لغو حكومي او inantii sayar la dardaarmaya waxaa lagu xukumay wiilkan dil toogasho ah waxaana lagu fulinayaa dilka 2 maalmood ka hor maalinta ciidul fidriga wuxuu ka codsaday saraakiisha xabsiga in loo ogolaado inuu arko inantii sayar ka hor intaan lagu fulin dilka wuxuuna la hadlay reerkiisa ama afadiisa waxaanu ku yidhi sidan waxa laga yaabaa inaan fursad u waayo inaan arko farxadda wejigiina ka muuqan doonta maalinta ciida oo waxaan mari doonaa ciqaab sababi doonta inaynaan mar dambe is arag oo aynu ismacasalaamayno sidaa darteed waxaan kaa codsanayaa inaad iigu soo labisto inantayda yar una soo xidho dharkeeda ciida iiguna keen xabsiga si aan u arko farxadda wejigeeda ayna iigula muuqato inaan la qaybsaday farxadda ciida intaa kadib waxaa xabsiga loogu keenay inantiisii balse ma aanu ka helin farxaddii uu filayay inuu ku arki doono wejiga inantiisa yar waayo waxa ay dareensaneed in xaaladda uu ku sugan yahay aabbaheed aanay ahayn mid u muujinaysa rajo dambe oo ah inuu dunidan baaqi ku sii ahaanayo in badan uu isku dayay inuu farxad dareensiiyo inantiisa yar balse way haleeli weeday in ay faraxdo run ahaantii waxaa dunidan ku nool malaayiin muslimiin ah oo qaba baahiyaha kala duwan fadlan aynu u ducayno muslimiintu meel kasta oo ay joogaan gaar ahaan ummadda Soomaaliyeed wixii dhiban